xilliga yaa noqon karaya basaas. xilliga waxaa basaasnimo loo isticmaali jiray dadka awalba awoodda u lahaa inay helaan xogo iyo dukumentiyo sir ah. dadka waxaa dabageli jiray hay-adaha sirdoon ee cadowgu leeyahay, kadibna markay gacanta ku dhigaan waxay ka dhigan jireen basaas iyaga u adeega oo waddankiisa basaasaya. daawade, su-aal kaloo isweydiin mudan ayaa waxay tahay, maxaa dadka qaar ku kalifay inay howlaha sirdoon galaan? waxaa jiray asbaabo badan oo dadka qaar ku kalifay inay jawaasiis noqdaan. qaarkood waxay rabeen lacag, kuwo kale waxay ka soo horjeedeen siyaasadda waddamadooda lagu dhaqayo, qaar kalena waxay si qarsoodi iyo mabda' ahaan u taageersanaayeen waddan shisheeye. daawade, halkan waxaan ka xusi doonaa basaasiintii laba dal u adeegi jiray. intii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu, dowladda ingiriisku waxay hirgelisay siyaasad khatar ah oo lagu majar habaabinayo sirdoonka cadowga, isla markaana lagu helayo sirta cadowgeeda. siyaasaddani waxay ahayd in basaasiinta uu soo dirto waddamada ingiriiska ay dagaalamayaan sida Jarmalka loo bedelo kuwo u adeega ingiriiska, isla markaana jahawareer geliya sirdoonkii iyaga soo diray. in ka badan 40 basaas oo Jarmal ah ayaa xilliga ingiriisku ku guuleystay inay noqdaan kuwo Jarmalka iyo ingiriiska labadaba u adeega. ingiriiska waxay siin jireen xogaha Jarmalka, halka Jarmalkana ay u gudbin jireen macluumaad been ah. ilaa haddana siyaasadani way jirtaa oo waddamo badan ayaa ka faa'iidaystay basaasiin loo soo diro. su-aal kaloo isweydiin mudan daawade ayaa waxay tahay, haweenka basaasnimiyaa loo adeegsan jiray? dabcan haa, waxaa jiray dumar fara badan oo ku dhex jiray howlaha sirdoonka xilligii dagaalkii labaad ee adduunka u socday. dumarka jawaasiista ah waxaa ka mid ah kuwo u kala dhashay ingiriiska iyo faransiiska oo loo diray waddanka faransiiska si ay xogo sirdoon u siiyaan quwadaha isbahaystay oo markaas rabay inay faransiisku ka xoreeyaan Jarmalka. daawade, shabakadii sirdoon ee wakhtiga sidaynu horeba u sheegnay, waddan kasta oo dagaal ku jiray wuxuu lahaa shabakad qaabilsan raadinta macluumaad ku saabsan cadowgooda. shabakadaas waxaa ka mid ahaa Abwehr, waxay ahayd hay-addii sirdoon ee Jarmalka. waxyaabaha ay ku guulaysatay waxaa ka mid ahaa inay ogaatay gabaad dhulka hoostiisa ah oo ay samaystay dowladdii Netherland. hay-addani inta badan xogaha ay hesho may qaadi jirin madaxdii sare naasigu, sidaa daraaddeed waxay aakhirka noqotay shabakadani mid iska howlgab ah. M15 iyo M16 kuwani waxay ahaayeen shabakadii sirdoon ee ingiriiska. waxyaabaha ugu waaweyn ee ku guulaystay waxaa ka mid ahaa in basaasiin badan oo ingiriiska loo soo diray bedeleen oo ay ka dhigaan kuwo ingiriiska u adeega. hay-adahani waxay basaasiin u diri jireen waddamo shisheeye sida faransiiska oo Jarmalku haystay iyo weliba Jarmalka. OSS tani waa hay-addii sirdoon ee Mareykanka xilligii dagaalkii labaad ee dunida. hay-addani waxay shaqaalaysiisay basaasiin Jarmal ah iyo Austriyaanba ah. intii dagaalku socday, basaasiinta waxaa ka mid ahaa Fritz Kolbe oo fududeeyay dagaalkii isbaahisiga dib ugu qabsaday Faransiiska. ninkani waxa uu Mareykanka siin jiray xogo ku saabsan hubka gantaallada ah ee uu isticmaali karo Jarmalku. daawad, waxyaabaha xiisaha leh dagaalkan intii socday ka mid ahaa basaasiin badan oo ka tirsanaa shabakadii Jarmalka ee Abwehr waxay ka soo horjeedeen naasiga, waxaana marar badan ay ka qayb qaateen isku dayo lagu doonayay in lagu khaarijiyo Hitler. xisbiga naasigu waxa uu lahaa hay-ad sirdoonka u qaabilsan oo u gaara oo la odhan jiray RSHA. waxay xifaaltan iyo weliba dagaal toos u dhex mari jiray Abwehr. basaasiintu waxay la bixi jireen magacyo been ah si aan loo aqoonsan. tusaale ahaan, 2 basaas oo Norway u dhashay una shaqayn jiray ingiriiska waxaa la kala odhan jiray Moot iyo Jeff, balse magacyadooda saxda ah waxay ahaayeen John Moy iyo George Glad. fiidooga like sarsiina sheer garow. Assalaamu calaykum.